hadal qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa lagu sheegay in la baajiyay shirkii lagu waday in magaalada Nairobi ay ku yeeshaan hogaamiyayaasha dalalka Kenya, Ethiopia iyo Soomaaliya. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa waxa ay sheegtay in shirkaasi uu u dhaxeeyay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed la filayay in ay ku yeeshaan magaalada Nairobi 16 bisha March balse duruufo awgeed la baajiyay. wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ma aysan sheegin sababta loo baajiyay kulankaasi, balse wasaaraddu ayaa waxa ay sheegtay in gebi ahaanba lagu dhawaaqay in la mamnuucay dhammaan dhacdooyinka iyo weliba kulamada lagu qabanayo gudaha dalka Kenya. ha yeeshee Kenya ayaa ku tilmaamtay arrimahaasi sababta loo joojiyay isu imaatinka iyo kulamada, iyadoo kiiskii ugu horeeyay ee coronaviruska laga helay bariga Afrika gaar ahaan magaalada Nairobi. wasaaradda caafimaadka Kenya ayaa waxa ay sheegtay in la soo saaray amaro la xiriira in gebi ahaanba la joojiyo kulamada iyo shirarka lagu qabto gudaha dalka Kenya si loo baajiyo faafista cudurka corona. hadalka qoraalka ah ee isna ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa isna lagu sheegay in la faahfaahin doono sababta keenaysa in gebi ahaanba dib loo dhigay shirkii la filayay in madaxweynayaasha dalalka Kenya iyo Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia ay ku yeelan lahaayeen magaalada Nairobi.